kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba sida aad u dhantihiin mar kale ku soo dhawaada barnaamijka kulanka ee toddobaadkiiba mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga Universal TV barnaamijka kulanka waxa uu had iyo jeer idinkaga yimaada magaalada Hague ee waddanka Netherland waxaana barnaamijkan had iyo jeer aan ku soo qaadanaa laba qaybood oo aan ugu talagalnay inay bulshada Soomaaliyeed nagula daawadaan qaybta hore waxaan sidaan horeba idinku sheegay aan u doorbidnaa inaan ku wareysano shakhsiga aan u aragno warbixinta toddobaadkaasi aan ku lafaguri doona barnaamijkeena inaan ka wareysano hadba qaybta dambana barnaamijka waxaad ku maqashaa tartankii kadis had iyo jeer dhex mari jiray laba dhalinyaro ah oo u qaybinayo dooda iyo tartankaba saaxiibkay Bob laqas xubintaasina waa xubintii ila hadal hadaba barnaamijkeena toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed ama caruurta Soomaaliyeed waddanka Netherland ayaa wararkii ugu dambeeyay baryahanba soo baxay waxay sheegayaan in caruurta waalidkooda laga qaato marka ay iyagu xanaanin waayaan taasi oo noqotay cabasho ku soo noqotay ummadda Soomaaliyeed barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaana marka hore aan jecelahay inta aanan wareysiga gelin shakhsiga toddobaadkan martidii ugu ah inaad ila daawataan warbixinta shir ka dhacay magaaladan Hague oo ku saabsan arintaasi caruurta Soomaalida laga qaato shirkan looga dooday dhibaatada waalidiinta caruurtooda Soomaaliyeed ee laga qaato ayaa waxa lagu qabtay magaalada The Hague ee waddanka Netherland waxaana ka soo qayb galay in badan oo kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed iyadoo halkaasina ay soo xaadireen badi aabayaasha Soomaaliyeed ee Holland jooga marka loo fiiriyo tirada hooyooyinka halkaasi fadhiyay tanina waxay muujinaysaa sida ay u maqan tahay doorka aabaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga shirkan ay soo qaban qaabisay hay'adda Soomaaliyeed ee NETSOM ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay soo badatay tirada waalidiinta Soomaaliyeed ee lagala wareegay caruurtooda iyadoo lagu soo eedeynayo inaysan daryeeli karin caruurtooda sidaasina loogu geeyo qoysas kale oo Hollandees oo aan caruurtooda dhaqan ahaan iyo diin ahaanba la wadaageen dood badan ayaa ka taagan wadada loo soo maray in waalid caruurta laga qaato waliba waalidiinta Soomaaliyeed ee waddanka Netherland jooga aqoon-yahano sharci yaqaano hooyooyin hal aabe dhalinyaro iyo qaar ka mid ah hay'adaha dawladda Netherland u qaabilsan daryeelida caruurta inay mas'uul uga yihiin mararka qaarkoodna kuwa la wareega caruurtaasi ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dhibka waalidiinta ilmahooda laga qaato Soomaalida halkaasi joogtay qaarkood waxay ku eedeeyeen in ilmaha Soomaaliyeed waalidkooda looga qaato siyaabo aan sax ahayn halka hay'adda caruurta u qaabilsan dawladda Netherland ee goobtaasi joogtay iyagoo iska fogeeyeen eedeyntaasi iyagoona sheegay in waalidka ka hor ilmaha in laga qaato ay siiyaan digniino ka badan 3 sidoo kale Maxamuud Ciise oo isagu ah wiil Soomaaliyeed oo ay soo korsadeen qoys Hollandees ah ayaa halkaasi ku soo bandhigay filim muhiimada caruurta ay u leedahay daryeelida iyo taariikh nololeedkiisaba isagoo dhinaca kalena muujiyay sida aysan u dhib badnayn korriimadiisa xilligii uu la soo korayay qoyskaasi hadaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii halkaasi ka hadlay fikradahooda qisa yar ayaan waxaan idinkaga sheegaa hooyo Soomaaliyeed oo laba caruur laga qaatay iyaduna banaanka ay dhigeen Netherland una diideen hooy dhibaato xoog badan oo xanuun badan waaye alxamdulillah shukr rabbil caalamiin hooyadu waa soo xareeysanay labadii caruur waa soo dhaxsanay maxkamad ayaan la aadnay loo yaraan u qabanay alxamdulillah maanta waxa ziyaado ah Soomaali maanta loo yarnoo ah oon kala xiriiri karno wixii dhibaato ah oo soo saameyso insha Allah wad mahadsantiin alla yaa naloo ima war caruurta ay dhagaara u yeero war darisku waxba ka qaadi maaya adigu haddaad fiicantay darisku waa ku caawinaya hooyo kaligeed ilmo way korinaysay wayna korin jirtay laakiin waxa meeshii aan ka nimid iyo meesha aan joogno isku mid ma aha waa in hooyooyinka anigu ma aaminsan hooyo ilmaheeda dhaqaale daraynaysa marna waxaan aniga dhaadhacaynin hooyo waa hooyo ilmaheedana cid walba iyada ka jecel hooyo ma ogi shaydaan qaatay oo dadka balwadana waa dhici kartaa oo shaydaanka hoggaanka u qabtay shaydaan shaqaalo ah waa dhici kartaa caruurta inay iska dayacdo laakiin hooyo miyir qabta oo fayow u malaynaya caruurteeda inay dayacayso maanta dheena hooyo ka hadalna ma aha sababta aniga xitaa hooyada ay kaliya soo korisay laakiinse waxyaabaha qaar raganimada hooyo ma bari karto aabba ku bari kara waxaan rajaynayaa in maanta waxaan ka hadalna waxay ahayd ilmaha Soomaaliyeed oo leen hooyooyinkood laga qaatay si hooyooyinkaas u caawinaa ilmihii la qaatay xataa inaan ka harin oo aan kala jarkeeni diinteena u sheegno waxa anaga organisation ahaan aan rabno inaan suubin dadka Netherland markii loo geeyaan ilmihii xataa magacyadooda
magacooda waa bedelaan haddii caasho maxamed qof la dhihi jiray hadda waxay leedahay caasho fadna beerak camal oo kaleeto diintii way ka tageen dhaqankii way ka tageen ilmihii soomaali ma ku hadlaaya wiilashii oo inta yaryar ayagoo yaryar la keenay oo dadka oo Nederlaanka loo geeyey way diideen xataa inay dadkii ilmihii diinta baraa wiilashii in la gudo way diideen ilmaha waa laga kaxeeyaa waalidkii dhalay iyadoo aan cidna u dhaamin haddii laga kaxeeyo haddana waxaa dhacdaa in sidii gabadhuba ay haddaay ka sharqamisay ma garanayo magaceeda haddaay ay ka sharqamisay aad fiirisid boqolkii reer ee Soomaaliya waxaa laga yaabaa 10 reer in odagii la joogo marka waa la oran karaa oo runtii xaqiiqna way tahay in badani in aabihii kale laakiin aabaha kaliya dambiga ma lahe maynu isweydiino intayna aabaha dhihin aabahu muxuu u tagay soo su'aal ma aha oo inagu aynu dib islaamaha ugu soo celino aabayaashu maxay u tageen oo aynu isweydiino laakiin runtii aabayaashu dambi badan bay leeyihiin yaa markii la fiiriyo marka hooyo way rawaxday aabana ma jiro waxaan dumarka Soomaaliyeed kula talinayaa oo gabdhaha Soomaaliyeed kula talinayaa inaydin mid damba guursan oo aan ilmaha idin la korinayn inaydin guursan aniga waxay igu muuqataa horta qoladan caruuraha qaadata waa culays iyaga u kordhaya ma aha oo kharash badan baa uga baxaya oo daba socod badan iyo hawlo badan baa uga baxaya ma aha wax oo iyaga laftooda ay pleasure ka helayaan saasa aaminsanaa marka inaga maxaa inoo talaa hadaa Soomaali nahay aniga waxaan ku talin lahaa in la sameeyo meel focal point ah oo qofkii waxaas la soo gudboonaadaan ama hooyadii aragta in la aviis la siinayo ama help deskigaas la sameeyo oo dadka kan frivilliga oo aqoonta u leh oo hawlahan garanayaan ay meeshaas tagaan qofku markuu yimaado la siiyo talooyin wanaagsan dadkiina isku xiraado waxaan idinka codsanayaa dadka Soomaaliyeed ee wax soo bartay ee qalimada wata ee halkan soo hortaagan istiqtin adduunka kolbale hebel iyo hebel baan hay ha u soo jeestaan dhalinyarta Soomaaliyeed ha u soo jeestaan hooyooyinka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ha u soo jeestaan maxaa la dhahaa bimacna isfaarkana haysta ani waxba ima haystaan problem ima haysto alxamdulillah laakiin waxaan arkayaa dad badan oo dhibaataysan waa tahay intaasi aan kaga gudubno xubintii aanu kaga hadlaynay shirka ka dhacay magaalada Hague waxaana imika aan u gudbi doonaa qaybtii waraysiga waxay la fadhida Shukri Sheekh Ismaaciil oo iyadu kamid ah dadka Soomaaliyeed ee ehelku ah arrimaha caruurta Soomaalida ama caruurta kaleba ee wadanka Netherland ku nool mudana ku raagtay Shukri ku soo dhawow telefishinka caalamiga iyo barnaamijka kulan mahadsanid walaalo mahadsan tahay magacaygu waa Shukri Sheekh Ismaaciil waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa horta casmaada ay ugu soo casunteen barnaamijkan midda labaadna waxaan aad ugu faraxsanahay kulanka maanta halkaan aan ku qaadanay oo ah wax fiican oo aanan hore u haysan oo noo bilowday waa tahay waxaan rabaa inaan su'aalaha goosgoosano oo ujeedkana ka hadalno waxaan maanta aad arkaysa lagana hadlayay dhibka ugu badan ee caruurta Soomaalida ee waalidkood laga qaato arintu xagee marka hore ka timid dhibkana xagee ka yimid asalkiisa horta dhibka meeshuu ka yimid hadda maanta kama wada hadli karno dhibku wuxuu ka yimid dhaqan kala duwanaan diin kala duwanaan iyo annagii oo ah dad soo qaxay oo barakacay oo sida hadda maantaba u maqlayseen looyarada iyo dadka diskandaqa oo soo bartay ay sheegeen 10 jeer ayay problemka annagana haysta ka duwan yahay kan qofka Nederlaandka oo u dhasho wadankan jooga problemka haysta annaga dhibaatadu waxay naga haysataa waxa weeye uma aanan baranin Soomaali baan ahay hooyaan ahay 5 caruur aan haystaa in caruurtayda aniga qof aan ahayn uu ka hadlo dhibka ugu weyn oo jira waxa weeye horta Boughton standardka dadka dibadda ka ah oo aan caruurta family la ahayn ama waalid u ahayn sharci iyo dhaqan aan lahayn ma aha inay annaga ka hadlaan mideeda kale tan waxa weeye waxa jira dhib naga haysta dadkana raba in na caawiyo iyo annaga dhibtana haysta waxana la rabo in laga caawiyo ma ay oga waxa laga yaabaa dhibka annaga aan qabno inuusan u muuqan inta ay arkayaan ay tahay in inta la eg laakiin hooyadii ama aabihii uu dhibaato ka badan uu qabo waxaynu nahay adoo mahadsan Shukri dhibka lagu arko qoyska caruurtiisa la soo farageliyo oo laga qaato hal iyo laba maxay ka tahay
horta sida Netherlands sharcigiisu u dhigan yahay sharcigu waa hal annagu saan aaminsanahay ma aha waxaan aaminsanahay annagu sharciga inuu si gooni ah noo qabanayo oo annaga ajnabi ahaan Soomaali ahaan carruurtayda looga qaado taas ma jirto dhibkana haysta waxa weeye kama bilaabanayo inta maanta lagu arkay carruurtaada bari lagama qaadayo dhibku Netherlands waa system isku wada xiran iskuulkii dhakhtarkii meeshii in ilmihii sportiga ay tagayeen way wada xiriiraan marka iskuulka hadduu dhib sheego dhakhtarkii baa lala wacaya dhakhtarkii hadduu dhib sheego wuxuu la hadlayaa kuwii ilmaha ay meesha carruurtii lagu waayay marka dhibkii la wada arko dee waa laga qaadaya qaaditaanku waa waxa ugu dambaysa oo yimaada hooyada ama aabaha ku nool waddanka Netherlands ay Soomaaliyeed marka madaxa kale aan ka soo tagno carruurtoodu dib laga soo sheego isbitaalka ama iskoolka ama xarumaha kale carruurta la xiriir warbixinadooda laga helo maxay tahay talaabada ugu horeysa ee qoyskaasi lala sameeyo marka ay la soo xiriireen hay'adaha ku shaqada carruurta horta problemku wuxuu ka bilaabanayaa meel sida u sheegtayba ama waxa laga yaabaa meesha xanaanada carruurta la geeyo kow halka in laga bilaabo oo meeshaas ay tiraahdo waxa laga yaabaa ilmahaas inuu meesha marka la keeno uusan ilmaha la ciyaarin oo kale waa sinyaal oo ilmahaasi bixinaayo dhibaatada ugu weyn oo haysatana annaga waxay tahay markii la yiraahdo xanaanadii ilmihii labayda iyo barka jiray ilmahaasi dhaqanka meeshan ku haysta waa dhaqanka carruurta ka duwan ma soo maaha hooyadii marka inuu nal madaxeeda ka shidmo oo tiraahdo waa inaan hadda iska bedelaa uma haysana marka problemku waxaan sideedaba annaga wax ka qabanaa markuu faraha ka baxo markii halka bilowga problemku uu yimaado waxa lagu siinayaa helab ah in lagu caawiyo dib baa ku haysta waxay ku leedahay naagta meesha haysata ilmahaaga hadda u baahanto ilmahaaga khasiinkaaga uu weeyahay waxaan kugula talinaynaa qof ku caawiya annaga dhaqankeena Soomaalida ahayd albaabada aan xiranaynaa albaabkii marka aan xirto maxaa lagu arkayaa qof wax qarinaya inaad tahay cabsi waxa nagu jirta naagtaasi inaanay ahayn muhiimadeedu inay caawiso ay rabto laakiin inaga ina qaadato tan nagu qufulano kaliya oo aan iska difaacayno sidee bayna naagta gurigayga hadhowna dhibkii markii laga qaado dadkii kale aanu dhibkii saaraynaa marka aniga tala ahaan waxay ila tahay run ahaantii wax badan waxaan ku dhex jiro waana arkaa waxaan kula talinayaa waalidiinta Soomaaliyeed dhibaatada haysata waxaan maanta halkaan labada sac ka wada hadlaynay oo jira inay optayd ay balaja tarakanayaan markay arkaan inay u baahan yihiin caawinaad inay accept gareeyaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo carruurta la qaadanayo waxaa dhalay hooyo aabe halkan ku nool dhibku mas'uuliyadda carruurtaasi la qaadanaya yaa ka mas'uula waalidka wada jira hooyada aabaha ayaa dayaco ka wada yimid mise mid kamid ka yimaada dhibaatada xagee ka timaada inta badan hadaad fiirisid doodaha inta badan aad aragtid horta annaga inteena badan خبروك خسين وحين نذرلانك دهانا هاي وحن هاي أما اللي ستاندر فاذر أما اللي ستاندر مودر أما أبوه كليه أما هو كليه عرور هايستا أما أبو كليه عرور هايستا marka ilmahaasi handicap waaba haystaan sababtoo ilmo waxa ilaahay ka abuuray laba qof waxaana loogu talagalay abi hooyo inay wada jir u wada koriyaan koo awalan horta problemkeenu waaba soo bilowday intaan la arkinba sababtoo hooyo kaliya ilmaha way korin kartaa laakiin booski aabaha ma geli karo ilmahaasi iskuulka markuu tago meel baa la wada fariisanaya cunug walba aabihiisa hooyadiisu ka hadlaya dibka ugu yar iskuul baa 6 sano ka soo shaqeynayay dugsiga hoose ilmihii Soomaaliga ahaa lama arag wali ilmo Soomaali oo meeshii fadhiyo orana ani aabahay ma shalayto kubad baan soo wada ciyaar ama waa sheekaysan ama meeshan waxa ciyaalku cunaan McDonald's kan ka wada cunaa ilmihii markaa cuqdadaas uu ku jira annagana waxaan dhaqan u leenahay problemka bas bareeg baarka ma dhigno wixii jira ilmihii yaraa haduu yiraahdo aniga oo hooyo ah hooyo aabahay aawe hor aabaha la qaadiyo iga aamusin aan yiraahdo ma ogiye isma oranayo intaan telefoonka qaado at least la hadashi ilmaha annaga inteena badan ama haduu magaalada joogo uge annaga ilmaha waxaan fox ka saaraa Soomaali hadaan nahay farsoorxin xanaaneyn nadaaf dharkeenu waa nadiif ilmaha iyagu way cadeeyeen yihiin laakiin waxaa jira emotional akhristaantu wax la dhaho ilmihii waxay u baahan yihiin upfooding discipline in la baro structure in la baro reekhal maanta khaydan wixii sida wiilkii maanta walaalkeena uu sheegay 6 hadii loogu talagal cashada in la cuno maalin walba 6 in la cuno dus annaga dhaqankeena iyo problemka ilmihii hadhow iyo waalidka conflict wuxuu ka imaanay upfood fox ma saareen shukri adigu aad u mahadsan dhinaca kale marka loo fiiriyo waa dhaweyd waxaan arkayay oo la xiriirayba qoys kamida qoysaska Soomaaliyeed ee wadankan ilmaha laga qaatay sidoo aabaha ii sheegana wali go'aan laga gaarin laakiin wuxuu sheegay in problemkiisa dhibkiisa uu ka bilowday
gabar ka mid a gabdhihiisa u dacweysay sidaasna saameyn u keentay in caruurtii isaga lagala wareego marka qaarkood ku muuqata inay caruurta halkani ay qayb ku leeyihiin in waalidkooda ayaga la kala geeyo horta ilaahay dadka markuu abuuray ma wada simin way jiraan ilmo qalqaaliyo dhib badan ilmo wax kasta oo aad siinaysa aanad xanaaneyn karin way jiraan laakiin aniga ma aaminsani Soomaalidu waxay tiraa dhariga maxaa kulaylka ka keena karka ka keena kulaylka uma aaminsani ilmo intuu iska tagaayo oranaya waalidkay waxba ima xanaaneeyo haddii aniga uu ilmo ii yimaado uu yoqsor ila yimaadaan ay yiraahdaan ilmaha waalidkiis ma xanaaneen automatically ma aha in ilmihii la aaminaa marka ugu horeysaba instansigu waxay xoog saarayaan oo xiriirka ugu weyn oo hadalka la qabanayo leh waa waalidka bay la xiriirayaan hadduu ilmuhu yimaado uu yiraahdo way jiraan ilmo beelo yaalo oranaay waalidiintoodii wax kasta ka jecel oo waxay ma siiyaan laakiin ballan waxaa lala sameeynaa khasaamo lagu waalidkii aabihii iyo cunugii waa la arkay ilmahaas wixii jira inaanay jirin laakiin annaga maxaa jiro dhibka noo keenaa ilmihii lagu aaminaa waa runtaa way jirtaa inay dhacdo de aabihii open uma noqonayo in uu markii la yiraahdo ilmahaaga waxaas uu soo sheegay open housing wax la dhahaa ma haysto wuxuu oranayaa aniga ilmahayga laygama hadli karo marka asagiina sidii looyarku sheegay xaqi uu lahaa baa ka xirmaay sababtoo ah haddii aad tiraahdo waayahay kaalay fiiriya oo albaabada iyo guriga u furto waa la arkaa ilmaha yar inuu warkiisa maxay tahay mustaqbalka laga filan karo ilmaha waalidkiisa laga kaxeeyay loo geeyo qoys Netherlands mustaqbalku wuxuu noqon doono tusaale aabahan la hadlay wadanka ku nool wuxuu telefoon igu sheegay in caruurtiisa qaar kamid ah lagu qasbay qoyska loo geeyay Netherlands oo aad maalin kasto axada kaniisadaha inuu kala hadlo bil cunugiisa inuu kaniisada u raaco qoyskaasi haduu rabo yuusan aaminin mabda'a dadkaasi iyo waxay aaminsan yihiin ka waran rajada laga qabi karo ilmahaasi qoyska soo korsanay 195 horta intaanaan horta obloosinkaas ka hadlin dhibaatadan haysata aan ku sheego oo jirta waa jirta ilmo aan u tagay oo reer Netherlands haystaan xanaaneysna sidii gabadhu noo sheegaysay oo aan qornayn waxyaabaha inay cunaan loogu talagalin iyo diintoodu waxay tahay waxa weeye annaga waxaan haysanin wax community la dhaho oo isku xiran oo dadkii ilmaha yararka u doodaya ilmihii xaq waxaad u leedahay marka lagu keeno sida cunuga Vietnamka ah buugdan baa laga daba wadaa wixii cunay iyo dhaqankiisa waa in loo sheego waa ku qoran tahay annaga laakiin wax qoran ma lihin ilmaha yagi meel baa la iska geynaya hada kaniisadii reerkii hadaan ba loo sheegin cunugooda inaan la geynin ayaga markaan ka masuula Soomaa marka ugu horeysa waxa ila fiican oo ila quman in inta la isku noqdo Soomaalida istiqtiyada jira oo isla shaqeeyaan sidii maamadii weyneed maanta ay sheegaysay inay ka hadlaan annaga maxay ilmaha iyagu xaq u leeyihiin way dhici kartaa istiqtin isku xiran Soomaaliya haduu yimaado inuu yiraahdo ilmaha waa yahay hadii Soomaali la waayo annaga marka hore qabanayna hadii la waayo laakiin reerka loo geynayo ilmaha iyagu waa inay cunno xalaal helaan way sameynayaan reerkii ama ilmihii ma qabanayaan forward lagu xiro liira ama waa inay cunno xalaal helaan waa inaan kaniisada laga geynin waa in diintoodii loo sheego oo maalinka axadda oo la geynayo qof imaam loogu yeero hadii taas aan helno inta istiqtinka iyaga ay war qoraan ay niidooska u dhiibaan problemku waa ka taas tan kaliya oo kaga bixi karna laakiin hadii ilmihi aan wax la qorin aanu dambiga ma saaray reerka haysta waa tahay waxaan rabaa inaan gabagabadii barnaamijka ku jirno waxaan rabaa inaan ku weydiiyo taladu way badan tahay dadku soo jeedinaya sida maanta baad arkaysay adiguna imika sheegaysay haddaba sidee lagu heli karaa iyadoo la og yahay inay ururada Soomaalidu kala tagsan yihiin community-yada Soomaalidu kala tagsan yihiin fikirkooda kala tagsan yahay xarun dhexe oo kaliya xataa u dooda caruurtan iyo waalidkooda in la isku hayo haddii la isku hawaan xataa iyagu ay gacmahooda kula wareegaan oo xarun dhexe sida dadku maanta u dhigayaan ani waxa ila qumrantii tala ahaan in Soomaalidu intay dib isugu noqoto waxaan leenahay Soomaaliya dad badan oo loo yara aniga laba cunug oo loo yaribada baratay aan dhalay ayaa jiro oo jooga intay dadkooda soo baxay oo hadeer wax bartay ay network suubiyaan call center wax la dhaho oo dadkaas wax bartay oo yar yarka ah xarun loo sameeyo dadkii ayagoo xataa waxaa jira isgaarsiin fudud la qaybiyo network la suubiyo loo qaybiyo dadka Soomaalida ah dadkaas yararka ah oo shabaabka ah oo wax bartay oo sharciga wadanka sidoo u shaqeynayo og inay wixii tala ah waalidiinta badan oo waxaa jira xaq waxay u leeyihiin aan ogeyn inay dadkaas kala taliyaan dadkaas dadkooda oo dhibaataysan oo tala yar oo dadkaas siiyaan problemkooda ku xalismi karo waa tahay gabagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha ugu dambaysa waan rabaa inaan barnaamijkeena ku soo xirno dadka Soomaaliyeed qurbaha ku nool waxaa ku dhacay dhaqan burbur badan wadamo kale aysan aqoon bay yimaadeen marka aad fiiriso
dal aad ku cusub tahay kulley dhib badan baa dadkaasi la soo gudboonaanaya dhibka caruurta iyo waalidkooda imika maanta ka hadlaynay ku saabsan iyo markaad barbar dhigto baahiyaha kale ee bulshada haysta halkee dhigi lahayd booska midka ugu dhibka badan ee caruurta u baahan iminka Soomaaliyeed iska kaashataa mise dhibaatooyin kale oo ka culus baa jira oo Soomaalida qurbaha haysata horta Soomaalida qurbada haysata dhibaatada haysata way badan yihiin ama xag caafimaad ha ka ahaato ama xag isfaham waa ha ka ahaato ama xag la qabsi la'aan ha ka ahaato ama xag culture ha ahaato ama xag diineed dhibta ugu adag oo jirta waalid waxa ku dhaca waxa ugu adag waciyalkiisa laga qaato waalidkuna horta sidiisaba wuxuu wixii kale to dhibta ahaystay ku iloobi karaa marka ilmihiisa annagu dad soo haajiray baan halkan waxa u nimid waxa weeye kuwaas mustaqbal ilaahay inuu u sahlo yararko ilaahay annaga awoodeena dalkeena ilaahay nabadna u celi marka kuwaas mustaqbalka waxaad ku fakaraysaa oo wax u baraysaa kuwaan ayaa dhibta jira xataa Soomaaliya ka furi kara dadkan aad korinaysid oo maanta ku dhimanaysid waxaad u barbaaraysaa kuwii Soomaaliya maanta ito nabadgelyo iyo xasilooni iyo ismaqal waa dadka isfahmi lahaa wadankeeni iyo mustaqbalkeeni ah ama halkaan aan joogano ama dhulkeena joogaan marka waalid waxa ku dhaca waxa ugu adag sidaan u caruurtooda oo wax noqda waxa ay u dhimanayaan dhibta ugu weyn oo jirta haddana waa caruurta aad baad u mahadsan tahay Shukri Sheekh Ismaaciil waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtiga aad u hurtay barnaamijka kulan ee dagala qayb gashay maanta waxaan rajeynayaa inaan waqtiyo kale kulmi doono barnaamijkan aad ku martin doonto waata qaybtii dambe ee barnaamijkeena ayaan imika soo gaarnay daawadayaal sida aad u dhantihiin imikana waxaan u baaqayaa saaxiibkay Bob Laqas iyo xubintii ila hadal ee tartanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoonta guud amaba sida ay aqoon ugu leeyihiin afkooda Soomaaliga iyo aqoonta guudba Bob waa kan mahadsanid garyare soo dhawaada barnaamijka xubinta ila hadal ee ku soo qaadi jirnay tartanka dhalinta Soomaalida ee afka Soomaaliga iyo dhaqankaba maanta waxa inala jooga Muxudiin iyo Diirshe ku soo dhawaada labadiina oo bilaabina kadiska hadirtaan adiga waxaad ii fasirtaa mahmahda dhagax taabasho iyo tuujin waa isku mid dhagax taabasho iyo tuujin waa isku mid macnaha waxaa loola jeedaa qofkan haddaad si kastoo asxaan ugu samaysid oosan raali ka ahayn waxba kama soo qaadayo waxaas ama asxaan u samey ama ha u samaynin ama wanaag fiican muuji adilay kuu taallaa waa sheekada waxba kama aha dhagax saasayna macnanta waan kunta sax waa jawaab sax ah in mahmahda labaad waxaa weeyaan biyo sare tagay waa la sugayaa macnaha biyo sare tagay waa la sugayaa macnaha qof baa mataqaanaa dhibkiisa batay wuu batay iska dhaaf qofkan asaa joogi doonaya asaa wax ku dhici doonaa qof kaloo dhib badan ama dilaa ah ay ku dhici doonaa asaa laga warsugaa صح صح اوكي ان واي هاي ان حكودينا ciyaaraha Arab Games oo laba bilood ka hor lagu qabtay dalka Qatar ayaa gabdhaha Soomaaliga kooxda Qatar ka badisay ciyaartay bay ahayd waxaa jirta ciyaar ka badisay Qatar Soomaaliya Soomaal laakiin ciyaartay ahayd waxaa ahayd ciyaarta basketballka صح صح اوكي ان لعبك ايوب داود حقو بنوني كو عياره كوحده مانشستر ماي ادو جاتو ما ايوب داود هو عياره كوحده اللي بيانغانيرو جوفنتوس بيانغانيرو صح واي صح اوكي ان ارجع جمله وعربي sentence اما phrase وانجليزي Soomaali ahaan maxaad ku oran lahayd jumlad يعني Soomaali ahaan maxaad u taqaana eragaas ma fahmin weli macnaha jumlad waa af Soomaali ma ogtahay carab waxay ka timid afka Carabiga laakiin erey kale oo Soomaali ah ma u taqaana macnaha aan phrase sentence ahayn taa waa Ingiriis ma ogtahay jumlad macnaha jumlad af Carabi ma ahan af Soomaali sama af Soomaali way tahay laakiin waxaan raadinayaa in erey kale oo af Soomaali ah oo aan ahayn jumlad bal adiga hada garan weysa asaga u gudbinaya okay صح okay in ereyada gaari xaafad iyo roodi iyo fataatiir
luqadee baa isticmaala af soomaali haddii laga reebo ma sheegi kartaa ma wacin kartaa ha ereyada gaari xaafad roodhi iyo fataatiir waa ereyga soomaali laakiin luqad kale xitaa waa isticmaala waa luqad waa sax ereyga muqdisho miyay macnayn kartaa muqdisho muqdisho ku macnayna ها اريجاز ها معناها تسالن صوماليا معناها بلا لا موقتها معناها دارات لكن ان اريج مقدشو بوخي دواء ماي ما هاي اوكي ادو متقان magaaladii xaabta ماي وحويان مقحة الشاه عربي واي وحويان معناها وحويان مقعدك شاه إن ومال الوفي سموك مقعد الشاه ها صح اوكي واحد شيكتا ان حمر معناه caradii guduudneed صح اوكي واحد شيكتا شيء كميدا استدح الشيء هدي او كدافان هدي او اي كدافان انا سو نقون ان سدح شيء وقتك ها ده iyo maalinta taanta saacadan maanta waxaan taagna maalin axada oo axadda ma arkay oo maanta tartan ku jira axadda ma arkay idaado soo mutaqana dal maanta wala dalaatan aan ku jiro ma isoo gaarayso iyo xoolaha hadii dhaafaan oo maanta taajiraan ahay bidi dan fiqiro waxay u adkaanaysaa si amadan aan ku helo صح هو arkaa waxaa raadinayay hadalka aad tiraahdo ama fursadaha ku soo mara laakiin inta sheegtay xitaa ila saxsan okay in dhameystiro mahmahdan awrka hore ayuu sanqaadkiisa leeyahay waa sax ama mid kale ku cali ama socodkiisu leeyahay laakiin sanqaad sax okay waxaa jirta nin majaajile ah magaciisna u dhow koox kubadda cagta ee Netherland waa kee gaajidista oo Soomaali ah okay kuukuna ma kuuku ma sheegin ma taqaanay igu ali waxaa nin majaajile ah aan ka faa'iideysto cabdimid dheere ajakis waa sax صح اوكي ان toko lamo sadi afur shan jaha torba sideed sagal kudhan intaan ku tiriyay waxay ahayd af maymay af jini af oromo ama af amhari isku jir midba qeyba ka soo qaaday maya ku celi toko lama in tirar ma ku celiyo mi su'aash okay toko lama sadi afur shan jaha torba sideed sagaal kudhan oromo صح واي اوكي ان هذلدان معناه كلا شيك يقول لمبري maxaa sheega ان معناه ان يقول لمبري هذا كله igu lambari yani igu qabo ماي ibar ماي maxaa معناه وهذا هذا سبب له ما وقتها igu lambari macnaha qof ma taqaana aad meesha maray aad garanaynin ama qoftaan igu lambari ama ibar qoftaan saaxiibta jacayl ما waa lambarkaaga qor le waa ma waqtها igu lambari اوكي وهذا هذاك ما waqtها ciyaalka xaafadda waa ciyaalka xaafadda isticmaala اوكي mid kale igu liq igu liq اوكي adigu ma taqaan igu liq warkiisii waay ma waqtها اوكي igu iifi caawa idib jabka maree maya igu iifi caawa ibar caawa maya waa inuu waa u dhowdaad inuu kula noocaaba waaya mugta okay in waanu abuuris ba ka horeysa sheeg macnaha qofka haddii la waaniyo yani suu yahay iskama bedelayo
abuuristiisa صح ka horeysa. صح اوكي iska guur looma guuro iska guursana looma guursado macnaha maxaa waaye macnaheedu igu celi iska guur looma guuro iska guursana looma guursado qofka waa laga fiirsadaa iska صح waa sax waay okay waxaad sheegtaa qof waani waa dudun ciidka maaha qof waani qof ku celi bal qof waani waa dudun ciidka maaha qof waani waani waa dudun ciid ka qaad macnaha warka ciid dudun ciid kama dhamaato qofka adaa waanida kaa diiday iska daa camal waay iska daa dudun sidii waxaa lamid yahay waa sax waa sax sax waay waad sheegtaba okay waari ma side warka kaa haro guurso wax dhal oo kale sax waa noqon karta sax waayil tag lama yidhaahdo wuxuu ku taga balatusa qofka weyn haddii wax loo sheego dhaho waxaa samee yani iska tag lama dhaho laakiin hadal baa lagu tusaa hadal oo kale sax ama shaah ma siinaysid oo kale sax okay wixii adiga ku dhibaya walaalka looma quudho wixii naftaada dhibaayo walaalka laguma sameeyo sax waay dagaal waa gelin dambe macnaheedu waxa waaye haddii qofka maanta wuu kaa raayay bas alloora marka waxaan is arkaynaa galabta camal oo jaanis kale aan kugu gaada adigana waa noo dambeysaa sheekadana qabyo waay oo dagaalka nagama dhammaan laakiin macno kale way lahan kartaa soo macno kale way lahan kartaa haddii maanta aniga ninkaan isdagaalno oo dhowr feer ugu qaado aan iska tago macnaha haddii aan sii buuqbuuqo dagaalkii waaba laga adkaada maanta laakiin biri haddana biri saacadan camal noo balan ah oo dagaalkii aan ka aarsi doona waa aarsi waa sax waay laakiin waxay noqon kartaa xitaa hawsha inteeda ugu dambeysa ay ugu culus moogtahay laakiin waa la saxsantahay waayahay 9 lagu kala haysta marka hadda su-aashan qofkii si sax ugu jawaabo ayaa badinayo maanta farta taagna wada jawaabta u taqaanid ariga weera ku jiro maxaa waaye macnaha ariga weera ku jiro waxa waaye annagoo meel soconno ama ciidan aan aragno ama boolis ama dad dakana soo galay dagaal soo geystay dad kamid ayaa aragnay horyaa ariga weera ku jiro macnaa xarfaanaa soo dhex gali waay waa sax waad keentay okay waxaan ku leeyahay aqbalyo okay maxudiin 9 dhibcood baad keentay waad ku mahadsantahay ka qaybgalnimadaada dirshe waxaan ku leeyahay aqbalyo fadlan intaas waxaa ku dhan xubinta ila hadal ee barnaamijka kulan dirshe wuxuu keenay 10 maxudiin wuxuu keenay 9 aan dib idinkugu celiyo saaxiibkeena garyare mahadsantihiin intaasina waxaa ku dhan xubintii ugu dambeysay saaxiibkay Bob la qasiyo guud ahaaba barnaamijkii kulanka ee aad ka daawaneyseen telefishinka caalamiga Universal anigoo Cabdiwali Ibrahim Gareera ah ayaa idin la socodsiinayay dhinaca farsamada waa horseed media tan iyo kulanti dambe iyo barnaamij la mid ah intaanu ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo iyo amaan Allah